dhammaan wasiirka dowlaha waxaan sida aragteen halkan hadda waxaa la qaaday dhaawacii koobaad waxaa la qaaday 4 bukaan sidoo kale waxay noo keeneen 4 dhakhtar magaca goobta maalinta iyo bisha waxa uu la wadaagaa kii dhacay 14 Oktoobar 2017 kaas oo lagu suntay musiibadii ugu weynayd ee Afrika ka dhacday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي قارئ وحادنا سواح من أحسن قلب ونأحسن همي ونأحسن وعكس كوتا ونأحسن وعكوري جينا أديكو فرحت مالين تاتنا مقالك داودونتو دقسي دقا كانوا سبسكرايب ساسوك المقالك لا يقروا المسنتين دادكي أدوغيدين دبكي هيستي قراحيدي حمر كده أكو دعوة عمي أيا دولة تركي وحي أفيد السي عافمات فريئة حدو عافمات فريئة وواح إن حمر لغي قادو أنكرا لغيو إسطنبول لغيو لغوسو داويو العاق معها الدونك ساوكتين مالتا وحقوقها لسان وعافماتك وهدي ملاريا ku qabato ugu yaraan almost $100 lagu daaweynaa horto saasay tahay dadkii caafimaad fidiya loo fidiyay laakiin waxa ka dambeeyay marka waxa ka dambeeyay in booski la kala gato oo qaab qabiil isku qaado qof walba qofkii saaxiibkiisa oo qaado kadibna dadkii kala la dhaho gata lacag laga dhigay $5,000 la saara waliba dhaawacyo waxay jiraan indhaha ka dhacayo ayaga dhan eber ah waxa la sheegay wiil gacmihii lugaha iyo waliba xubintii taranka go'ay saasay tahay wiilkaas waa laga tagay qabiil baa lagu bedeshtay lacag keena lahay family wuxuu ka soo jeedaa lacag aan haysan wiilka wuxuu ahaa markii dadkan adiga kaba caseeyo oo muqulata qof kaba caseeyo ah ayaa $10,000 dhiibi karo oo Turkiga ku aad no way ma dhiibi karo marka hadii dadkii loo fidiyay caafimaad free ah soo xaq darama in lacag laga qaado oo la dhaw lacag keen dadkiina qaab qabiil loo kala xusho dhabahan waa wax la yaabo Soomaali meel u roon ma aqaan hadii gaaladii idin gargaarto oo idin dhahan caafimaad free ah idin siinayna ma waxa ku siiyay dadka qaab qabiil ila cakeena sidoo kale caliyare ayaa beeniyay arintan wuxuu dhahay been waay dabaan run waay ma dhiilahay marka horeba because waxa la isla ogyahay waxaan bal muuqaalka caliyare asna fiirsan dhammaan wasiirka dowlaha waxaan sida aragteen halkan hadda waxaa la qaaday dhaawacii koobaad waxaa la qaaday 4 bukaan sidoo kale waxay noo keeneen 4 dhakhtar oo sabaysa qalliinka jirka waxaan runtii rabaa inaan cadeeyo oo bulshada u cadeeyo waxa jira in si badan loo wareejiyay in la kala fadli yeelay dadkii bukaanka oo walaalaheen ah awalan waxaan rabaa in aan horta ma jirto sabab dad walaalaheen oo anaga aan mas'uuliyiintoodii nahay loo kala fadli yeelo oo loo kala la xajaclaysto ma jirto sida ka warqabtaan dawladda anaga aan walaalaha iyo saaxiibadana ee Turkiga waxa jira habraacyo dadka ay noo kaalmeynaysa aan marsi ay u maraan waxa kamid ah isbitaalkooda Digfaar inuu cadeeyo in dadkaas aan dalka wax looga qaban karin habraacaas ayaga u gaar u yahay marka 4 bukaan oo hadda la qaaday waa bukaanadii yaala Digfaar oo habraaci Turkidu ay ku qaadaan dhaawacyada oo safaaradooda iyo dawladooda iyo wasaaradooda caafimaadku ay ku aqbasho bukaanadii maray way bukaanada kale waa jiri karaan bukaanada ka culus kuwan laakiin isbitaalo kale yaaleen إحسانك لبعض إنه سبعين وحوي إصلاح هالكن أيو سفير كأمر كبحيي إن أوعيدي كلا السوق قاضو أو أيجنا ديك فير للجيو وزارة عافماتك يو بحوها سفارة تركيا وأقوم هذا علينا وعرنا مركز دتك الصوماليات رنت مركز لقاها الله وزارة عافماتك أو وزيرك وزير دولها نقل الجوجان يتيم ككلا شقوين أو أي تا إن الله الله ما هنقو يقبتين دتك إن لقى بعض عماه ولا ليال مركز ده وحلو بهاي إن قفكي وحقبته ugu yaraan maartay hadal wanaagsan lagu yiraahdo loo mahadnaqo wasiir waa ognahay shaqada qabateen waa mahadsantihiin anaga gobol ahaan waa ognahay waa in ka warqabnaa waxaan codsanaynaa sida haddaba amarka u bixiseen dadkaas walaalaheena garaanada wiilkii yaray ogoonka hayo kale istaalka hadda waa tiriyo hal geeyo inaan dardar gelino si loo qaado intaasna codsi naga tahay anaga afka bulshada ku hadlayno sidoo kale waxaan fursadan uga faa'iideysanaa inaan u mahad celiyo immigration-ka oo Sacdi uu nala joogo oo runtii shaqo degdeg qabtay qofka markii hadda wiilashaan wiilkii la keeno kale baasaboorkiisa waxa lagu sameeyay wax saacad ka yar iyagana runtii oo mahad celinaa markaas ani waa sheegaa qof kasta oo maanta waxna tara abaalan u haynaa dhabahan horta dadka dhaawacyada muuqaalka tan soo dhigi karo maxay dad baa indhaha taa ka dhacay waxba aan u jeedin dad baa maqaarkii ka siimay dad baa lugi ka go'ay dad baa gacmihii ka go'ay xitaa YouTube ku caas uu ganaaxi karaa because YouTube laga ma ogolo wax argagaxay dadka ka nixinayo laakiin dadkaas waxaan jeclaan lahaa in sida Ilaahay uu ogyahay cadaalad loo falo dhaawacyada loo kala qaado sida u kala adag yihiin dad waxa jiro adiga
dhaawac fudud iska soo gaari karo oo far go'an iyo laakiin qof far go'an qof lu go'an isku mid ma baxa marnaba sidoo kale waxa u jeeday mid leeyahay qabiil looga tagay oo inta dhan maqan waa laga tagay starka looga tagay isagana horta Soomaaliya hadii maanta wax la siiyo cadaalad loo qaybinayo cadaalad ma jirto anaa ogayn cadaalad dhicin laakiin maadaama cadaalad dhicin hal yareeyo cadaalad darada hal nusqaan wax yar hoos loo dhigo marka insha Allah dhamaantood waxa u rajeenayaa caafimaad waxay noo bilaabay muuqaalkiisa waxaan ka mahad celinayaa sida aad Instagram-ka iyo diraysiin muuqaalada afar muuqaal maalintii sameey waxa ii sahashay idinka maxaa yeelay inta YouTube galo ma raadi karo muuqaal idinka ii soo diro taasna waa shaqo ay heystiin aad ma sabti waxaan idin leeyahay bis waxaan noo bilaabay muuqaalkiisa xiga insha Allah magaca goobta maalinta iyo bisha waxa uu la wadaagaa kii dhacay 14 Oktoobar 2017 kaas oo lagu suntay musiibadii ugu weynayd ee Afrika ka dhacda warbixintan waxaan idinku soo gudbin doonaa 9 kamid ah urkutaalooyinkii laga diiwaan geliyay qaraxyadii Muqdisho ka dhacay Sabtidii waa 9 reebay mahadooyin 1 marxuum Maxamed Ciise Koona waxa uu ahaa wariye ay jeclaayeen kuwii xirfadda la wadaagay ayaan darase Sabtidii ka hor kaligii ayaa ka noolaa qoys qurux badnaa oo lagu magacaabi jiray reer Ciise Koona aabihii iyo hooyadii Dabley ayaa dishay Mahad Ciise Koona oo ahaa walaalka qura ee wadunada ka eegtana burcad ayaa ku dishay Koonfur Afrika 2022 2 Xabsa Cabdullaahi Xabsa 2019 sida maanta oo kale sheekadeeda ayaa aad loo wariyay si kala duwan 3 sano iyo bar ka hor qisadeedu waxa ay koobaysay kalgacal yar Axmed jacaylka dhabta ah ee ka dhaxeeya waalid iyo ubadkiis kaliya ayaa u bixisay aabaheed si ay maalmo kala dunida ugu sii ildoogsato dhoola cadeyntiisa Sabtidii waxa ay maqashay geeridiisa 3 ilmahan yar eeg waa meeqa jir malaha wali naaska hooyadeed caanihii kama gurin dusheedaas laga soo qaaday hooyadii oo meeyda eeba wuu badbaadiyay dhaawac yar mooyo jirkeeda muuqda laguma arag garaafo kale maskaxda iyo niyadda si adigu qiyaas waxaase ka daran waxa dhacay sababta hooyadeed u geeriyootay ma oga ka dul ooysay laga sayaabay in wixii indhaheedu arkeen dhagaheeduna maqleen la ahayd waxa dunida ay dhawaan ku soo biirtay caadi ka ah 4 waa Cabdullaahi Jaamac Ali wariye hore hooyadii oo uusan muddo arag ayuu qurbaha uga yimi inuu maalmo la joogo see maanta calool xumadu way isdhaantaaye isaga iyo inaadeerkii oo la socday raqada iyo ruuxdoodii lama helin 5 waa marxuumad Iqra hooyada oo qaadka ku iibin jirtay meesha uu qaraxa ka dhacay ayay u soo orday si ay xaaladeeda u ogaato waa hooyo ka mid noqotay dadkii ugu horeeyay ee geeriyooda iyadana kii labaad ayaa dilay 6 ninkan odayga ah ee meesha fadhiya waxa uu muuqaalkiisu sawirayaa xaaladda boqolaal qof oo kale oo ay Sabtidii sidan ku dhacday wuxuu tagay goobtii qaraxa si uu u baadi goobo dad ehelkiisa ah oo meesha ku ganacsan jiray balse markii uu ka qoostay raqada iyo ruuxdooda ayuu halkaasi qamoonyo la fariistay 7 waa nin kale oo danyar ah suuqana gaari gacan uga xamaasha waxay dhiiladu soo gaartay isaga oo raadinaya bariiska reerkiisa balse markii uu tagay isbitaalkii la geeyay xaaskiisa waxaa loo sheegay inaan waxba loo qabanaynin haddii uusan bixin lacag ku dhow $50 waxa uu sheegay in intaasi qof kale ka bixiyay balse dhibkiisu intaasi kuma eka waxa waliba yaab leh Soomaaliya oo dal faqiir ah in wax walba qiimo ahaan ka sareeyaan inta celcelis ahaan qofku bixin karo 8 aaba qaba xanuunka macaanka oo sababay in lug looga jaro ayaa laga soo saaray isbitaal Madiina si gurigiisa loo geeyo qaraxii ayaa jidka ku haleelay lugtii kale ayuu ku waayay hadda isbitaal Madiina ayuu yaalaa 9 waxaa sidoo kale iyana la tabiyay waalid iyo walaalo isbitaalada tagay waxa ay ku arkeen dadkii ehelkooda ahaa oo gogo'an ama aan ku sugnaan xaalad aan la eegi karin sida hooyo la sheegay inay aqoonsatay madaxa wiilkeedii oo go'an eebaha una xariisay inta geeriyootay inta dhaawac ahana u booga dhayo qayb ka mid ah sheekooyinkan xanuun kale waxaan ka soo xigay